sii kordhinta dadaalada lagu horumariyo sugidda amniga taageeridda bulshada danyarta ah tallaabo ku qaadida habraac qaldan intaba iyo kuwa ka badan waxaa looga hadlaa shirka golaha wasiirada iyo shirarka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa shir gadoomiyay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana looga hadlay qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sugidda deegaanada amni darada ku habsatay dardargelinta dadaalada lagu taageero bulshada ayaa ka mid ahaa waxyaabihii dheeraadka ah ee looga hadlay shirka khamiislaha golaha wasiirada madaxweyne Cabdicasiis Laftigaran ayaa warbixino ka dhageystay qaar ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka soo qayb galeen shirka khamiislaha ee toddobaadkiiba mar qabto wasiirada dowlad goboleedka wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cali Isaaq ayaa laga dhageystay warbixin waxaana uu ku sheekeeyay toddobaadkan in aanay wax galaaso ah ka dhicin gobolada kala ah Baay Bakool Shabeellada Hoose intaaba ka tirsan deegaanada koonfur galbeed walow ay jiraan howlgallo qorsheysan oo ay fuliyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ugaas Xasan wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qodobadii muhiimka ah ee looga hadlay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah maanta oo khamiis ah sidii caadada bayna u ahayd shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigaran ayaa inoo qabsoomay waxyaabaha maanta sida gaarka looga wada hadlay waxaa kamid ah arrimaha ammaanka horumarinta mashaariicda kala duwan ee reer koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kalena xoojinta xiriirka ka dhaxeeya wasaaradaha koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Isaaq Cali Subag oo toddobaadkii la soo dhaafay guud ahaanba xaaladaha amniga ka warbixiyay isagoona tilmaamay gobolada koonfur galbeed Soomaaliya xaaladoodu aad u degan tahay marka laga reebo inay ku howlan yihiin ciidamada kala duwan la dagaalanka xukuumadka ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu warbixin ka dhageystay guddigii loo xil saaray guud ahaanba kormeeridda iyo talo ka keenidda dhulka danta guuda oo ay dowladdu leedahay gaar ahaanna airboorka iyo nawaaxigiisa oo aan ognahay in inta badan dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ay deegaansadeen iyadoona toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha guddiga uu magacaabay guddigu waxay sheegeen inay kulamo badan sameeyeen meel fiicanna ay wax u marayaan marka ugu dambaysana ay la soo wadaagi doonaan guud ahaanba dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo golaha wasiirada intaba sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo isna safarra ku tagay magaalooyinka Marka iyo Baraawe isagoo indhayn badan ku soo sameeyay guud ahaanba sidii dekedaha mustaqbalka la rajaynaya koonfur galbeed Soomaaliya degmada Marka iyo Baraawaba dib loo howlgelin doono haddii Ilaahay qadaro wuxuuna tilmaamay wasiirku wasaaraddu inay hawl adag hayso hawshaas oo ah in mustaqbalka biidnillaahi tacaala dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ay ku hiran doonaan dekado ay isticmaali doonaan haddii Ilaahay idmo sidoo wasiirka sheegayna xal wanaagsan ay meeshaas ka socoto iyadoo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ay soo dhaweeyeen dadaalka la rabo in dib loogu hawlgeliyo dekadaha koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo isna warbixin dheer halkaas ka soo jeediyay guud ahaanba wuxuu u qabsoomay wasaaraddiisa gaar ahaanna horumarinta dhinaca internetka iyo isgaarsiinta koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu sheegay wasiirku in hawsha wasaaradda meel wanaagsan marayso wax dhibaato weyn aysan